faahfaahinno dheeraad ah iyo macluumaad ayaa waxaa laga helayaa wadahadal foolka-fool ah oo ay muddo kadib yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. kulankan oo dhacay intii ay socotay xafladii caleemasaarka ee Deni ayaa waxaa diiradda lagu saaray in meesha laga saaro madmadowga u dhaxeeya dhinacyada Muqdisho iyo Garowe. wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Jaamac Xasan Khilaaf oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii tagay Garowe ayaa xogtan bixiyay kana sheegay in kulan uu dhex maray Xasan iyo Deni kaasi oo si gaar ah labadooda u yeesheen. Jaamac ayaa shaaca ka qaaday in labada nin ay si hoose uga wada hadleen khilaafka dhexdooda ah uuna jiro isku soo dhawaansho weyn sida uu hadalkiisa u dhigay. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in lagu ballamay kulamo kale oo yeelanayaan labada dhinac si loo soo afjaro ayaa la yiri khilaafka u dhaxeeya dawladda iyo Puntland. wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya ayaa hadalkiisa isagoo sii wata wuxuu sheegay in khilaafka dawladda dhexe iyo Puntland aanu ahayn sidii loo dhigay balse la buunbuuniyay waa sida uu hadalkiisa u dhigay. waxaa kale uu hadalkiisa ku sii daray in uu sheegay oo kaliya khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo Soomaaliya inuu yahay kala aragti duwanaanshiyo oo kaliya isagoo sheegay in meesha laga saarayo si loo soo celiyo wada shaqayntii Muqdisho iyo Garowe. khilaaf weyn oo runtii u baahan in la buunbuuniyo meesha kama jiro marka runta kuu sheego, laakiin aragti kasta oo kala duwan waxay leedahay dad lisa oo si qaldan u lisa ayuu sii raaciyay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliya. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ay taagan tahay dood ka dhalatay wax ka beddelka dastuurka uu tallaabo u qaaday baarlamaanka Soomaaliya xilli ay si weyn u diidan tahay Puntland taasi oo doonaysay in aan la bilaabin hawsha dastuurka.